kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan oo dhammaantiin meel kasta aad joogtaan halkani waa janalka wararka ee Shabaab TV mar walbana waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhaca iyo akhbaaraadka kale ee ka qarsoon maantana barnaamijkeena faaqidaada waxaan ku soo qaadanaynaa magacyada mas'uuliyiinta loolanka adag ugu jira xilka gudoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir xafiiska madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in saacadihii la soo dhaafay ay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonaya in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ilaa iyo 7 qof oo siyaasiyiin ah isla markaana hadda ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay CV-yada waxaana ay la kulmeen mas'uuliin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo arrimahaas kala hadlay iyo sida loo magacaabi lahaa waxaa la helay qaar ka mid ah xubnaha doonaya inay noqdaan gudoomiyaha gobolka Banaadir magacyadooda kuwaas oo xilal kala duwan dawladda ka soo qabtay haddana qaarkood ayba xilalkaasi hayaan dadka la ogaaday oo doonaya in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa ka mid ah Yuusuf Cabdi Garre Yuusuf Jaale agaasimihii hore ee hay'adda duulista iyo saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqo joojin uu ku sameeyay wasiir Omar balse ninkan waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yuusuf Jaale ayaa soo wajahaya kaliya diidmada ra'iisul wasaare Khayre oo weligood aysan heshiis noqon Axmed Washington ayaa ka mid ah ragga doonaya in loo magacaabo xilkan oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho sidoo kalena ka mid ah xubnaha xilkan raadinaya isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho Washington waxay saaxiibo dhow yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda sidoo kalena xuma madaxweynaha dalka waxaana ay aqoon wanaagsan ka dhaxaysay muddo ku dhow 40 sano waana shakhsiga ugu rajada wanaagsan ilaa iyo haatan Cali Gacal ayaa ka mid ah agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya oo ka tirsan shakhsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka geeriyooday Yirisow Cali Gacal waxaa xilkan in loo magacaabo dalbaday beesha uu ka dhintay injineer Yirisow maadaama ay aad isugu dhow yihiin waxaa ka mid ah sidoo kale Cumar Qaanso waa gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in ninkan sidoo kale ay dalbadeen beesha uu ka soo jeedo oo gudoomiye Yirisow ay isxigaan Cumar Dhegey oo ahaan jiray gudoomiyihii guddiga doorashada waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka aad u doonaya isla markaana xilkan in loo magacaabo doonaya beesha uu ka soo jeedo Cumar Dhegey ayaa waxa ay ku doodayaan in weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ay dad fara badan ugu dhinteen sidaasna ay doonayaan inay gobolka arrimihiisa wax badan ka qabtaan Salaad Cali Jeelle ayaa ka mid ah oo ah la taliye ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ahna la taliyaha madaxweynaha sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Salaad waxa uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka xilkan sida weyn u raadinaya Cabdi Jiino waa gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waana saaxiibka ugu dhow ee madaxweynaha Soomaaliya waxaana la sheegay inuu ka tirsan yahay shakhsiyaadka xilkan raadinaya Salaad Cali Jeelle iyo Cabdi Jiino rajo weyn kama qabaan xilkan in loo magacaabo sababo la xiriira awood qaybsiga beelaha waxaana imaanaya qalad ku saabsan hanaanka wax qaybsiga kuraasta maadaama iyaga booskooda uu ku fadhiyo wasiirka amniga ee Soomaaliya oo weliba aysan suurtagal ahayn in xilkaasi laga qaado madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale qaabilay qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir waxaana la sheegay inuu qaarkoodba kala hadlay qorshihii ku aadanaa magacaabista gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho kadib markii uu geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho kadib markii qarax lagula beegsaday xaruntii uu madaxda ka ahay ee dawladda hoose warar soo baxay markii horeysay waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiinta xilka ay qaarkood raadinayeen intii uu noolaa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaawiciisa loo qaaday dalka Qatar si halkaasi loogu soo dabiibo qaar ka mid ah waxgaradka dega beelaha gobolka Banaadir gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo gudoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir ayaa arintaas aad uga soo horjeestay waxaana waxyaabaha ay ku doodiyeen ka mid ahaa in nin nool booskiisa aanan marnaba la dhaxli karin inkastoo markii dambe uu geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir isla arrimaha Muqdisho ayaan sii wadaynaa dhalinyarada Muqdisho waxa ay bilaabeen shirar ka dhan ah maleeshiyaadka Al-Shabaab dad badan ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ka daadigi laadahay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisow ay dileen Al-Shabaab kadib markii xafiiskiisa qarax lagula beegsaday dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaana aqoon-yahano ah ayaa bilaabay kulamo ay arrimahaasi uga arrinsanayaan iyo sida dhibaatooyinka ay ku jirto Muqdisho looga saari karo dhalinyaradan ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada Muqdisho ay soo wajahayaan beegsi gaar ah iyo sidoo kale in weliba aqoon-yahanada iyo qaybaha bulshada haldoorka u ah gaar loo beegsanayo arrintan ayaa u muuqata kacdoon aanan weli soo ifbixin waxaana xoogga lagu saarayaa badbaadada dadka ku nool gobolka Banaadir qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo la hadlay caasimadda waxa ay sheegeen in kulankoodu uu yahay mid ay ku badbaadinayaan haldoorka isla markaana looga hortagayo weerarada Al-Shabaabku ay geysanayaan iyo damaca gobolka Banaadir iyo wax qabad la'aanta dawladda federaalka ee Soomaaliya
kulamadan ayaa ka socda goobo gaar ah oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaana abaabulaya barayaasha jaamacadaha iskuulaadka kuwaas oo doonaya inay wax ka qabtaan arinta Muqdisho oo u muuqata inay faraha ka sii baxayso odayaasha siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee dawladda ku jira ayay sheegeen inay wax ka qaban waayeen balse markan iyagu ay dhexda u xiranayaan sidii arrimahaasi ay wax uga qaban lahaayeen Muqdisho waxaa ka jira musiibooyin u gaar ah oo ay ugu dhinteen dad fara badan oo indha u ahaa dalka iyo dadka waxaana ugu dambeeyay dhacdadii foosho xumeed ee lala beegsaday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna Duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo xubno kale oo ka tirsanay maamulkiisa hagaag haatanna waxaan aadaynaa dhankaas iyo Soomaaliland waxaa Soomaaliland ku soo badanaya fallaagooyinka gooni isku taag ah oo maamulkaasi la dagaalamaya nin lagu magacaabo Faysal Falaalug ayaa mar kale weerar ku qaaday Soomaaliland waxaa faahfaahinno dheeraad ah ay ka soo baxayaan weerar mar kale jabhadda uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Korneel Faysal Falaalug waxa ay ku qaaday ciidamada maamulka Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weerarkaas oo ahaa mid xoogan waxay jabhaddaasi la magac baxday xoreynta gobolka Sool ay la beegsatay xarun ciidanka booliiska ee gobolkaasi ay lahaayeen halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee maamulka Soomaaliland wararka qaar ayaa sheegay in dagaalka foolka fool ah oo halkaasi ka dhacay oo muddo saacad ah oo socday waxaana jira qasaaro labada dhinac soo kala gaaray iyadoo hubka iyo noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ma cadda ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay iyo weerarkaas inta uu la eg yahay sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo dagaalku uu dhex maray xaaladda ayaa haatan degan waxaana lagu soo waramayaa in halkaas ugu dambeyntii kooxii dagaalka soo qaaday isaga laabteen habeen ka hor ayay ahayd markii jabhaddan ay weerar ku soo qaaday xerada lagu magacaabo buurta sayidka oo ay degan yihiin ciidan ka tirsan maamulka Soomaaliland taas oo ku taala duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee waqooyiga dalka Soomaaliya waxaa jira sidoo kale in korneel kale oo lagu magacaabo Korneel Caare uu dagaal adag Soomaaliland kula jiro kaas oo ka dagaalama isna naftirkiisa qaybo ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag Soomaaliland ayaana waxa ay sheegtay in nimankaas markii hore ciidankeeda ka tirsanay ee gacan bir ah ku qabanayso inkastoo arrimahaasi ay wax badan uga suurtageli waayeen ugu dambeyntiina faaqidaadeenna wararka waxaan ku soo qaadanaynaa dawladda Kenya waxa ay shaacisay inay difaacayso Axmed Madoobe dawladda Kenya ayaa shaacisay inay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ay ka taageerayso doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sarkaal ka tirsan madaxtooyada dalkaasi oo u waramay wargeyska The Standard ayaa sheegay in dawladdiisa ay garab taagan tahay madaxweyne Axmed Madoobe sidii uu mar kale u soo laaban lahay sidoo kale sarkaalkan oo qariyay magaciisa ayaa xusay in dawladda Kenya ay difaacayso Axmed Madoobe isla markaana ay ku howlan tahay sidii uu mar kale madaxweyne uga noqon lahay Jubbaland doorashada Jubbaland waa mid muhiim inoo ah maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu ka shaqeynayaa sidii mar kale Axmed Madoobe uu madaxweyne ku noqon lahaa ayuu yiri sarkaalkaasi sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha Jubbaland uu yahay siyaasiga kaliya ay Kenya aaminsan tahay isla markaana ay xulufo la tahay sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii mas'uulkan ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada Kenya aysan ka bixi doonin magaalooyinka Kismaayo iyo sidoo kale Dhobley kana difaaci doonaan al-shabaab warkan ka soo baxay dawladda Kenya ayaa ku soo aadiyay xilli haatan loolan adag iyo culays uu la kulmayo Axmed Madoobe balse isaga uu doonayo inuu mar saddexaad loo soo doorto xilka madaxweynaha Jubbaland haatan warar kale oo ka soo baxay magaalada Kismaayo waxa ay sheegayaan in Axmed Madoobe ugu dambeyntii uu aqbalay in doorashada ay ka dhacdo xarunta UN-ka ee magaalada Kismaayo ku taala taas oo ciidanka AMISOM ay waardiyeeyaan kadib markii shalay magaalada Kismaayo uu gaaray taliyaha ugu sarreeya ciidanka AMISOM waxaana uu kulan gaar ah la qaatay Axmed Madoobe inkastoo maamulka Jubbaland ay warka taliska si kala u dhigeen haddana waxaa jirta in xaaladda Axmed Madoobe ay maalinta ka dambeysa ku sii xumaanayso iyadoona ay jiraan culaysyo fara badan oo dhinacyo kala duwan kaga imaanaya guud ahaan daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa fadan haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe inoo share gambaleelkana taabo si markasta wararkeena iyo warbixinadeena ay kuu soo gaaraan siina sheer garay si ay saaxiibadaada kale u sii daawadaan nabadgelyo ammaano Allah daawade Audio Jungle.